carabtii hore waxay isugu faani jireen codkarnimada iyo afmishaarnimada, waxaana ay taasi sabab u ahayd in ay abwaanada iyo murtidhaadhigu dhexdooda sumcad iyo karaamo weyn ku yeeshaan. cidda bulshada saameynta koowaad ama labaad ku yeelataana waxay noqotay gabayaaga, maadaama oo ay sugaanta ay tiriyaan markiiba bulshada ku dhex faahayso. haddaba itaalkaas ay abwaanadu lahaayeen waxa ay warwar ku haysay boqoradii kala duwanaa ee soo maray dowladihii islaamka ee ay carabtu garwadeenka ka ahayd. boqor kastaana waxa uu abwaanada kuwooda ugu caansan siin jiray mushahar, abwaanaduna sugaan ammaan iyo duco ah ayay kol kasta u tirin jireen. haddaba abu jacfar al-mansuur oo ahaa boqor ka mid ah kuwii ugu caansanaa ama ugu saameynta badnaa dowladii cabaasiyiinta ayaa khaati ka istaagay abwaanadan iyaga oo aan waxba qaban lacagta iska qaadanaya, waxaana lagu xaman jiray abu jacfar inuu ahaa nin aada u dhabcaal ah. rag talo kama dhammaato ee boqorkani in badan ayaa uu ka fikiray sidii uu warka abwaanadan kusoo dhammayn lahaa. waxa uu damcay inuu ka takhalluso khatartooda isaga oo ka taxadaraya in ay colaadiyaan oo ay sugaan dhaliil iyo cambaarayn ah ay u tiriyaan. aakhirkiina waxa uu ku guulaystay inuu helo hal uu ku farxay. boqorkani hibo waxa uu u lahaa gabay kasta oo uu hal mar maqlo inuu xifdiyo. wiil yar oo qasrigiisa joogayna waxa uu hibo u lahaa gabay kasta oo 2 jeer uu maqlo inuu xifdiyo. waxa kale oo ay soo heleen jaariyad iyaduna hibo u leh gabay kasta oo ay 3 jeer maqasho ama lagu dul akhriyo in ay iyaduna xifdido. abu jacfar waxa uu helay xeelad weyn, se waxa uu ilaaway in ay Soomaalidu ku mahmaahdo tabhayow lagu tabhaye. waxa abwaanadii uu u diray fariin uu ku leeyahay abwaanka soo tiriya sugaan aanu hore u maqlin boqorku waxa la siin doonaa dahab la miisaan ah. waxa uu ku soo qoray gabaygaas oo waagaas harkaha, jilfaha iyo waxyaabo la mid ah ayaa warqad ahaan loo isticmaali jiray. sidoo kalena waxa lagu wargeliyay abwaanada ka soo tiriya sugaan uu boqorku hore u maqlay in laga jari doono lacagta ay dowladda siiso. suugaanyahan kastaaba waxa uu u xusulduub sidii uu u curin lahaa maanso cusub oo soo jeedata khaliifka. kadibna subaxii dambe ayay qasriga soo safteen. marba mid ayaa loo sii daayay khaliifkii. abwaankii ugu horreeyey kolkii uu soo galay ayaa lagu amray in uu tiriyo gabayga uu kusoo talagalay, kadibna waa uu bilaabay oo uu haddana dhammeeyey. abu jacfar ayaa qoslay oo ku yidhi war gabaygan hore ayaa aan u maqlay. abwaankii oo yaaban ayaa ugu warceliyey macquul maaha, aniga ayaa midhaha iska leh oo xalay oo dhan urinayay. abu jacfar oo si kalsooni leh u hadlaya ayaa ku yidhi war iyada oo dhammaystiran ma ku akhriyaa. saa abwaankii ayaa yaabay oo ugu warceliyey bal hadda akhri haddii ay runtaa tahay. abu jacfar oo halkii mar ee uu abwaanku tirinayay ku xifdiyey gabayga ayaa mar labaad gabaygii oo dhammaystiran ku celiyey. saa abwaankii ayaa khalkhalay oo yaabay macquul ma aha ayuu ku tiraabay. abu jacfar oo qusgelinaya ayaa ku yidhi war hadda keligay maaha ee xataa wiil yar oo qasriga jooga oo maalin dhaweed gabaygan aad sheeganaysid tirinaya ayaa aan maqlayay ee bal aan kugu yeedho. wiilkii yaraa ee 2 jeer gabayga ku xifdin jiray oo sodhaha dabad iska dhagaysanayay abwaanka iyo boqorka ayaa loo yeedhay. isagiina waa uu ka dul tiriyey gabaygii abwaanka oo dhammaystiran. shoog ayaa abwaankii qabsaday. waxa uu ku dhaartay xalay isagu inuu curiyey gabaygan ee aanu ahayn mid uu nin hore tiriyey. haddana abwaanka qudhiisu waa uu iska shakiyey. isaga oo salbabaqsan ayaa wiilkii yaraa hadlay oo uu ku yidhi boqorow hadda gabaygan qudhiisa jaariyad qasriga ka shaqaysa ayaa xifdisan ee ma u yeedhaa. kadibna waa la doonay. iyadana daaha dabadeeda ayaa soo lagu qariyey oo waa gabadhii 3 jeer ee gabayga lagu dul akhriyo xifdin jirtaye waxa ay aada uga bogatay markii uu abwaanka abu jacfar iyo wiilka yare ay akhriyayeen. iyadiina maasadii oo dhammaystiran ayay xafdiday. markii loo yeedhayna way ku dul akhriday. abwaankii ayaa shaamareeray. waxa ku dhacday kalsooni darro oo waxa uu ka shakiyey in aanu isagu gabaygan tirin. saa waxa u muuqatay inuu ceeboobay oo isaga oo khajilsan ayuu albaabka ka booday. abwaankii labaad, kii saddexaad ilaa kii ugu dambeeyey ayuu sidaas oo kale ku sameeyey boqorku. mid walibana isaga oo khajilsan dadkana iska qarinaya ayaa uu magaalkiisa galay. waxaana uu halkaa kaga takhallusay abu jacfar lacagtii badnayd ee ay abwaanadu iska qaadan jireen. soomaalidu waxa ay maahmaah u leedahay wiilkii iswaalaba wiil waabiyaa hela. abwaan caan ahaa oo asmici la odhan jiray ayaa la kulmay abwaano dhowr ah oo meel iyaga oo niyad jabsan fadhiya. markii uu weydiiyey waxa helayna waxa ay uga warrameen sidii uu boqorku gabay kasta oo ay tiriyaan uu u yahay mid uu hore u maqlay. asmici ayaa xeeladii fahmay. kadibna inuu boqorka jikaaro ayuu isku dayay. habeenkiina maanse cajiib ah oo taariikhda gashay ayuu soo curiyey. subaxii ayuu soo xidhay dharka reer miyiga si aan loo aqoonsanna wejiga ayuu maro ku qariyey.
aroortii horena qasriga ayaa uu iska soo xaadiriyey. Abujacfar ayaa loo sheegay in uu abwaan reer miyi u yimi, kadibna soo daaya ayuu yidhi, waxaana loo ogolaaday inuu gabayga uu hayo tiriyo, waana uu bilaabay. Arrinta xusida mudan ayaa ahayd in uu Asmici tiriyey maanso isku soo wada noqnoqonaysa, taas oo u suurta gelin weyday inuu boqorku xifdiyo. daawada xagga dambe ayaad ku dhagaysan doontaa maansada. Markii uu dhammeeyey ayuu boqorkii isiri ku celi, laakiin wuu ku guuldaraystay. haddana wiilkii yaraa ayuu u yeedhay, nasiib darro isna waa uu xifdin kari waayey. jaariyadiina sidaasi la mid ah, iyadana uma ay suurto gelin in ay gabaygii qaybto. boqorkii ayaa ku yidhi abwaankii, kan wixii aad ku soo qoratay gabayga si laguugu miisaamo dahab. kadibna abwaankii ayaa yidhi, boqorow, tiir weyn oo uu awogey ka dhintay ayaan ku soo qoray, ee igu dar 4 nin oo xoogag waaweyn oo soo qaada. sidii ayaa la yeelay oo tiir aad u culus oo maansada lagu soo qoray ayaa dahabkii lagu miisaamay. nasiib darrase boqorkii oo ka cabsanaya inuu axdi darro ku sifoobo ayaa siiyey. taariikhyahanada qaar ayaa se yidhaahda wasiirkii maaliyadda ayaa abwaankii ku yidhi, warma waxa aad marinaysaa khasnada dowladda. qaar kalese waxa ay wariyaan in markii uu abwaanku isyidhi dahabka raro uu wasiirkii gartay kuna yidhi, boqorow, ninkani waa Asmici. boqorkii oo cadhooday ayaa ku amray inuu marada iska furo, waxaana uu gartay inuu yahay Asmici. oo inta uu ku xanaaqay ayuu ku canaantay sababta uu ugu dhuuntay, waxaana uu ku yidhi, waa dib u socoli hantida dowladda. abwaankii ayaa ugu jawaabay, haddaad boqorow rabtid in aan hantida soo celiyo, adiguna abwaanada lacagtii aad ka jartay dib ugu fasax. kadibna boqorkii waa ka yeelay, abwaankiina sidii ayuu dahabkii ku dhigay. daawaday la dhigayso maansida taariikhiga ah ee uu Asmici tiriyey. বুলবুলি, শঙ্খ শাফিরের বুলবুলি।